Thomas Tuchel oo sharxay sababta uu dib ugu yeeray Jordan Henderson. Tababaraha xulka England Thomas Tuchel ayaa sheegay in xulashadiisa muranka dhalisay ee Jordan Henderson ay ahayd mid fudud, isagoo xusay in kabtankii hore ee Liverpool uu yahay guuleyste dabiici ah. Henderson oo haatan 34 jir ah una ciyaara kooxda Ajax ee Netherlands ma matalin xulka England tan iyo sanadkii 2023 waxa uu ka maqnaa qorshaha Gareth Southgate ee Euro 2024 taasoo keentay in la filayay inuusan ku soo laaban doonin xulka. Si kastaba ha ahaatee, Tuchel ayaa dib ugu yeeray Henderson markii uu soo xushay liiskiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu qabtay shaqada xulka England. Dad badan ayaa su'aal ka keenay sababta tababaraha Jarmalka ah uu u doortay Henderson iyadoo uu haysto xiddiga da'yar ah, balse Tuchel ayaa si buuxda u difaacay go'aankiisa. Tuchel ayaa Henderson ka yiri waa xulasho fudud sababtoo ah waa guuleyste dabiici ah. Wuxuu yahay kabtanka Ajax, waana ciyaaryahan diyaar ah oo si joogto u ciyaara. Waxa uu kooxda keenaa hogaamin, dabeecad wanaagsan, shakhsiyad iyo tamar badan. Wuxuu hubiyaa in ciyaartoyda oo dhan ay ilaalinayaan heerka ugu sareeya. Sidaas darteed wuxuu u taagan yahay wax kasta oo aan isku dayayno inaan dhisno. Waxaan rabnaa inaan dhisno koox ay taageerayaashu ku faani karaan oo ay la jaanqaadi karaan. Wuxuuna Jordan u taagan yahay wax kasta oo aan rabno in xulkeena uu noqdo. Tuchel ayaa sidoo kale xusay in Henderson uu fursad buuxda u haysto inuu ka qayb galo koobka adduunka ee 2026 isagoo muujiyay sida uu ugu kalsoon yahay khibradda iyo hogaaminta laacibkan.